أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال في القرآن الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii al-ikhlaas qaybtiisii 6 oo inoo noqon doonto insha Allah qaybtii ugu dambeeyay. waxaa laga wariyay Shufay al-Asbahi, saxaabigaas ama taabicigaas khilaaf ayaa ka jireen. wuxuu yiri waxaan soo galay magaalada Madiino, waxaa ku sugnaa magaalada Madiino nin dadka agtiisa ay ku kulansan yihiin. markaa dadkii weydiiyay waxaan yiri waa kuma ninkan? markaaba waxay dhaheen waa Abu Hurayra. waanu soo dhawaaday ayuu yiri ilaa aan hortiisa fadhiisto ama hortiisa aan imaado, asaga oo dadka xadiis u akhrinayo. markii xadiiskii u dhameeyay oo aamusay oo dadkii ay ka kala tageen baan waxa ku yiri ilaah baan kuugu dhaariyay, waxa iga sheekeeda xadiis rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka maqashay oo aad ka xifdisay oo aad ku amal fashay oo aad ka baratay. markaa wuxuu igu yiri Abu Hurayra, bal fadhiisa ayuu yiri, waxaan ku sheegayaa xadiis rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo ii sheegay. ahad nala joogay aniga asigana ma jirin, ahad kale nala jooga ma jirin ayuu yiri aniga asiga. dabadeed wuu hinqaday, korba u booday Abu Hurayra, hinqasho ayuu hinqaday. markaa buu soo dhacay asiga oo lamiir daboolay, kooma ayuu galay weeyaan, kooma ayuu galay. wax yar kadib ayuu soo miirsaday, wuxuu masaxay wajigiisii. kadib wuxuu yiri waxaan kaaga sheekeynayaa xadiis rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo iga sheekeeyay. haddana sidii kale kor ayuu u hinqaday oo miir daboolmay. xoogay ka bacda ayuu soo miiraabay, wajiga ayuu haddana sidoo kale masaxay. markaaba wuxuu yiri xadathanii rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam faqaal, rasuulka baa ii sheekeeyo wuxuu yiri: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة يقضي بين خلقه فكل أمة جاثية، فأول من يدعى به رجل قد جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. وحيري إلهي خير كيس بدي كان إلهي وحونا كسر مريه nusqaan dhammaanteed ilaahay wuu ka sara marayee. markii la gaaro maalinta qiyaamaha ilaahay wuxuu kala xugminahayaa makhluuqiisa, ummad kastana meesha ayay joogtaa. qofka ugu horeeya oo loo yeerahayo waxaa weeye waa nin qad jamaca alqur'aana, qur-aanka kulmiyey oo qur-aanka bartay oo aruuriyey oo wada xifdiyey. ninka labaad waxaa weeye wa rajulun qutila fii sabiilillaah, waa nin wadada ilaahay lagu dilay oo jihaad lagu dilay. ninka saddexaad waa rajulun kathiiru lmaal, waa nin hanti badan. fayaquulu allahu tacaala lilqaari alam ucallimka maa anzaltu calaa rasuulii qaala balaa yaa rab. ilaahay baa wuxuu ku dhahayaa ninkii qur-aanka yaqaanay, miyaanan ku barin rasuulkayga waxaan kusoo dejiyey? markaabuu wuxuu leeyahay waa i bartay, nacam rabbiyow. markaabuu ilaahay wuxuu weydiinahayaa maxaad uga camal fashay wixii aan ku baray? markaabuu wuxuu leeyahay kuntu aquumu bihi aanaa alleyli waannahaar, habeenkii baan istaagi jiray oo qur-aanka akhrin jiray oo salaatuleylka aan ku tukan jiray, maalintiina qur-aanka waan akhrin jiray. markaabuu ilaahay wuxuu leeyahay kadabta, been baa sheegtay. wa taquulu lmalaa'ikatu kadabta, malaa'igtuna waxay leedahay been baa sheegtay. bal aradta an yuqaala fulaanun qaari'un faqad qiila dalik fayu'maru bihi ila annaar. waxay leedahay malaa'igtu waxaad doonaysay in lagu yidhaahdo hebel waa qaariul qur'aan, waa nin qur-aanka akhriya, waana lagu yidhi sidaa.
markaaba fa yu'maru bihi ila annaar waxaa la amrahayaa naarta intii ka ayaa loo jiidahayaa naarta ayaa loo hogaaminahayaa waxaa loo imaanahayaa midkii hantida badnaa oo waxaa lagu leeyahay maxaad ilaah baa wuxuu ku leeyahay maxaa ku sameeday hantidii aa ku siiyey markaabuu wuxuu ku jawaabahayaa kuntu asilu bihi raxim waxaan ku xiriirin jiray qaraabada wa atasaddaqu bihi waana sadaqaysan jiray markaabuu ilaahay wuxuu leeyahay kadabta been baa sheegtay wataquulu malaa'ikatu kadabta bal aradta an yuqaala fulaanun jawaad faqad qiila dalik fayu'maru bihi ila annaar malaa'igtaba waxay leedahay been baa sheegtay oo waxaad rabtay in lagu yidhaahdo fulaan waa nin deeqsi ah waa nin gacantiisu furan tahay sidaana waa lagu yidhi markaaba ninkii waxaa la amrahayaa oo loo hogaaminahayaa naarta waalciyaadu billaah wayu'taa biladii qutila fii sabiili illaah waxaa loo imaanahayaa midkii lagu dilay jihaadka fayaquulu lahu ilaah baa wuxuu ku leeyahay lima qutilta maxaa lagu dilay qaala markaabuu wuxuu leeyahay qaataltu fii sabiili illaahi xataa qutiltu ilaahay waddadiisa baan ku dagaalamay ilaa layga dilay fayaquulu allahu tacaala lah ilaah baa wuxuu ku leeyahay kadabta been baa sheegtay wataquulu malaa'igtabaa waxay leedahay kadabta been baa sheegtay bal aradta an yuqaala laka jarii'un faqad qiila dalik fayu'maru bihi ila annaar waxaad doonaysay in lagu yidhaahdo hebel waa mid dhiiran oo geesi ah oo soo majeesta ah waana lagu yidhi sidaa markaaba waxaa la amrahayaa naarta ayaa loo hogaaminahayaa kadib nabiga sala allahu calayhi wasalam abu hureyra ayaa wuxuu yidhi nabiga ayaa wuxuu igu dhuftay gacantiisa ayuu wuxuu iga dhuftay weeyaan jilibka ayuu iga dhuftay markaabuu wuxuu igu dhahay yaa abaa hureyrow ulaa'ika halaathatu awalu khalqi illaahi tacaala tuscaru bihim innaaru yowma alqiyaama waalciyaadu billaah abaa hureyrow saddexdaas qof waa ilaahay makhluuqiisa kuwa ugu horeeya weeyaan oo naarta lagu hurinahayo maalinta qiyaamaha siduu ilaahay qur-aanka ku sheegay naarta waxaa lagu huriyaa dad iyo dhagax ayaa lagu huriyaa weeye yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaasu waalxijaara ayuu ilaahay yidhi dadkii ilaahay iyo rasuulkii rumeeyow naftiina iyo ehelkiina ka ilaaliya naar hurkeeda iyo qoryaha waxaa looga dhigahaya camal oo lagu shidahayo iyo baasiinkeedu oo yahay dad iyo dhagaxyaal ay yihiin dad iyo dhagaxiin ayaa baasiin u ah weeyaan ilaahay ha naga badbaadiye xadiidkaas waxaa ku cad weeyaan dad wanaagsan dad acmaal wanaagsan sameynahayo oo ilaahay dartii aan u sameynin waxa ay muteysanahay ayaa xadiiskaas ku cad weeyaan oo maxay tahay waxay muteysanahayaan waa jahannama weeyaan ama naar weeyaan ilaah baan ka magan galnay waxay ku muteysteen wax kale ma ahan dad ma aysan dilin ilaahay kuma gaaloobin sixir iyo wax dambiyaasha waaweynka ma ayna sameynin maxay sameeyeen ikhlaas ayaa laga waayay wey camalkoodii wanaagsanaa waxaa laga wariyey saxaabiga weyn xabru haadihi lumma ummaddan caalimkeedii ahaa ibnu cabbaas radia allahu canhuma can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam annahu qaal rasuulka ilaah ayuu kasii wariyey inuu rasuulka yidhi ayuu ka wariyey lamaa khalaqa allahu jannata cadnin khalaqa fiiha maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khadara calaa qalbi bashar uma qaala laha takallamii faqaalat qad aflaxa almu'minuuna halaatha uma qaalat innii xaraamun calaa kulli bakhiilin wa muraa'in ilaahay markii uu abuuray jannada ayuu ilaahay wuxuu ku abuuray jannada dhexdeeda wax aynan il arag dhagna maqal qalbi basharna aan kusoo dhicin dabadeed ilaah baa jannadii wuxuu ku yidhi hadal markaabay hadasho waxay tiri waxaa liibaanay dadka iimaanka laga helay ayay 3 mar ku soo celisay kadib waxay tiri aniga waxaa xaaraan iga ah qof kasta oo bakhiil ah mid kasta oo masuug ah
oo gacantiisu ee laaban tahay oo aan waxba bixinaynin xaaran ayuu aniga yahay ima galahay haddaan jannadii ahay iyo mid kasta oo muraa'i ah muraa'i waxaa la yidhaahdaa qofka cibaadada ilaahay dartiisa aan ula imaanin ee dadka ha ku arkaan ula imaado weeyaan oo ikhlaas la-aanta cibaadada ula imaado weeye qofkaasna jannada xaaran ayay ka tahay weye jannada ma galahayo weeyaan xaamidul lafaaf wuxuu yidhi salafu saalixi ka mid ahaa idaa araada allahu halaaka mri'in caaqabahu bihalaathati ashyaa ilaahay haddii oo doono qof inuu halaago wuxuu ku ciqaabaa 3 arrin kan ugu horeeya waxaa weeye yarzuquhu alcilmu wayamnacuhu can camali alculamaa wuxuu ku irsaaqaa ilaahay cilmi ayuu ilaahay qofka siiyaa laakiin wuxuu ka manciyaa u diidaa inuu camal falo cilmigii ku camal falo sida culamada oo kaleeto arrin waa dhibaato cilmigaas wuxuu ku talahay malaha weeye wuxuu ku mudanahayaa ciqaabta iyo cadaabka alle nabiga sallallahu alayhi wasallam allahumma inni a'uudhu bika min cilmin laa yanfac ayuu ku duceysan jiray weeye ilaahu waxaan kaa magan galahayaa cilmi aan waxba anfacaynin waxba taraynin oo qofkii cilmiga lahaa oon ku camal falinin camal arrinka labaad waxaa weeye ilaahay wuxuu ku irsaaqahayaa dadka saalixiinta inuu la saaxiibo balse ilaahay wuxuu u diidahayaa oo ka mancinahayaa inuu barta xuquuqdooda oo la saaxiibay dadka wanaagsanay haddana xuquuqdoodii ma garanahayo weeyaan xuquuqdoodii ayuu dhinac marahayaa inuu wax ka sheego oo kaleeto ama inuu uurka wax ugu qabto oo kale ayuu xuquuqdoodii ku garaweynahayaa arrinka saddexaad waxaa weeye ilaahay ayaa qofkii wuxuu u furahayaa daacada ayuu ilaahay u furahayaa weeye albaabaha daacada ayaa loo furahayaa markasta wax wanaagsan ayuu sameynahayaa balse ilaahay wuxuu u diidahayaa inuu ikhlaas ula imaado daacadaas walciyaadu billaah waa dhibaato ilaah baan ka magangalaynaa qofkii inuu camal fiican la imaado haddana ilaahay dartiisa oon ula imaan waayo waa wax dhibaato ah weeyaan qofkiina kama helahayo weeye camalkaas wax أجر كما هي لها ويان شيخ فقيها وكتابك تنبيه الغافلين ليرى هذا اسكاله ليث ليرى هذا نصر ليس أيا ليرى هذا شيخ السمرقندي أيا كتاب كيسا تنبيه الغافلين أيو كشا ويان أو كفسري وكفسر أرنتاس إنه إلهي qofkii oo daacada u furo oo ikhlaaskii oo ilaahay u diiday weeyaan waa layth sheekh al-yiraahdo nasr ibn muhammad al-hanafi as-samarqandi sheekh al-yiraahdo weeyaan wuxuu yiri inma yakunu dhalika li khubth niyyatihi wa su'i sariratihi لأن النية لو كانت صحيحة لرزقه الله تعالى منفعة العلم والإخلاص للعمل قفك علمك لسينا هاي وضنا إلهي وديده هاي نفع الآن علمك إنه كعمل فرض يقفك إلهي أوفر الضاعة إخلاص كلاك إلهي وديده أيوه فسر وحو يرارك وحو وحا صابوه نيدي سياح قف كانوا يري نيدي سياح يسترتي سياح وحو قلبي وكوها ياح عقيدتي سياح الوجه قف عقيدة آمن سوي سيدا دتك آمن سن صدح توحيدي وحي لمده إلهي عرك أيو جوغا دتك آمن سن إلهي هبينك أيو سودك دتك آمن سن إلهي دتك أمام مخلوق إلهي أيو شبه دتك آمن سن كواس ويان إلهي كمان قلنا عقيدة قلتك marka wuxuu yiri taas ayaa sabab u yiri sheekhaas hadii qofkan wuxuu yiri hadii niyadiisa iyo aqeedadiisa wanaagsan lahayd ilaahay wuxuu ku irsaaqi lahay inuu cilmiga ku anfaco iyo ikhlaas inuu amalka ula imaado isla sheekhaas wuxuu yiri wuxuu warinayaa sanad saxiix ayuu wuxuu ku warinayaa عن جبل اليحصل أيو كبرينها وقال وحوير كنا في غزوة مع عبد الملك بن مروان عبد الملك بن مروان أيان دولان أما الدقال أيان اسكر عنه ويري وقال هذا أيو أيان دقال اسكر عنه قال هذا أما تذكر بدعاء أيو قال أيو هو خوارج وحاس فصاحبنا رجل وحان لا صاحبه يرمركنين ayaan la saaxiibo yiri oo soo jeed badan oo habeenkii wax yar maana inta kale cibaado ku soo jeedahay
markaabaa nagaana ayuu yidhi maalmo ayaan joogno uu yidhi annaga oo aan garanayn ninkan kadib ayaan ninkii garanay oo waxaan u garanay waa nin saxaabada nabiga sal alla alay slam saasaan ku baranay ninka waxaan ku ogaan inuu yahay nin saxaabada rasuulka ka mid ah sala allahu alayhi wasalam ninkii axaadiis badan oo noo sheegay waxaa ka mid ah xadiidka oo noo sheegay inuu yidhi nin baa nabiga sala allahu alayhi wasalam wuxuu ku dhahay yaa rasuula allahi fiima annajaatu qadan rasuulka ilaahayow badbaadada maalinta qiyaamo ama biri oo maalinta qiyaamo loola jeedahay maalinta qiyaamo rasuulka ilaahayow badbaadadu waa maxay waxa lagu badbaadaya maalinta qiyaamo waa maxay ayuu yidhi markaabuu nabigu sala allahu alay slam wuxuu yidhi allaa tukhaadica annaas allaa tukhaadica allaha ilaahay waa inaadan dhagrin oo aadan qiyaanin markaabay ninkii wuxuu yidhi kayfa nukhaadicu allaha ilaahay sidee u dhagreenaa markaabuu nabigu sala allahu alay slam wuxuu yidhi an tacmala bimaa amaraka allah waa inaad camal fasha oo aa sameedaa ilaahay wixii uu ku amray turiidu bihi gayra wajhi illaahi adiga oo ula jeedo ilaahay dartii adiga aan ula jeedin weeyaan adoon ula jeedin ilaahay dartii ilaahay wuxuu ku amraa sameynaysaa balse ilaahay ulama jeedid weeyaan oo dadkaa ku arkaan iyo oo kaleeta ayaa ula jeedaa markaa nabigu wuxuu yidhi dardaarankaana siiye wuxuu yidhi wattaqu riyaa istutuska ka dhowrsaduu yidhi oo iska ilaaliya istutuska dadka isusina cibaadada ilaahay ula imaada dartiis maxaa yeeloo yidhi fa innahu ashirku billahi waa wadaajin ilaahay cibaadadiisii asiga oo kuugu lahaa oo asiga kuugu waajibiyey oo asiga dartii inaa ula imaato oo rabay aad la wadaajisa weeye makhluuq ha ku arkaan iyo ha ku ammaanaan aada meeshii keento wey marka wadaajin weeyaan wuxuu yidhi qofka nabigaasi waa xadiiska sii socdaahe qofka wuxuu yidhi cibaadada ula imaado dadka ha ku arkaan oo muraa'i qofka muraa'iga la yihahdo weeyaan dadka istuseen maalinta qiyaamaha makhluuqa dhan oo joogaan ayaa waxaa loogu cahayaa 4 magac ayaa loogu yeerahayaa yaa kaafir ayaa leeyahay mar gaalow yaa faajirow kii ilaahay daacadiis ka baxo yaa qaadir dhagarlow kii dhagarta badnaayo yaa khaasir kii khasaarayo camalkaada waxaa leeyahay waanta waa dhuma camalkaadii ajarna ma lihid weeyaan camalkaada wax dhumac baa laga soo qaada wax dhumay aan la helin ayaa laga soo qaadaya ajarna ma lihid ayaa leeyahay ajarkaada waa buray maanta wax dheefa iyo wax naxariis aan leedahay ma lahan ayuu ilaahay ku leeyahay faltamis ajraka miman kunta tacmalu lahu yaa mukhaadic waxaad dalabtaa ajarkaada waxaa ka raadisaa dadka ayaga dartooda aa u samey jirtay camalka midkaan dhagarooyo dadka ayaga dartooda aa camalka u samey jirtay oo ha ku arkaan ha ku ammaana aa u samey jirtay bal ayaga maanta ajar ka raas ayaa leeyahay hadday kusii karaan sidaas weeye markaaba ninkii la weydiiyey waxaa la yidhi adiga miyaa ka maqlay ilaah baan kugu dhaarin adiga miyaa ka maqlay ayaa la yidhi xadiidka nabiga sala allahu alay slam markaabuu yidhi ilaah baan ku dhaartee ilaahay xaq lagu caabudo keligiis oo ilaah kale xaq lagu caabudo una jirin baa ku dhaartay aniga ayaa ka maqlay rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ayuu yidhi kadib ayuu wuxuu aqriyey ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum dadka munaafiqiinta ilaahay ay dhagrahayaan ilaahay ayagana wuu dhagarhayaa weeye oo waxaa loola jeeda ilaahay ayagana wuxuu ku abaalmarinhayaa dhagartii sidaas weeye sheekha abuleyth nasr ibnu maxamed assamarqandiy sidaas weeye wuxuu leeyahay wuxuu noo soo jeedinhayaa dardaarankii ayuu noo soo jeedinhayaa insha allah kii ugu dambeeya noqon doonaa oo ku saabsanaa ikhlaaska wuxuu yidhi man araada an yajida hawaaba camalihi fi laakhirati yanbagii lahu an yakuuna camaluhu khaalisan lilahi tacaala bigayri riyaa'in uma yansaa dalika alcamal likay laa yubdiluhu alcajab wuxuu yidhi qofkii doonahayo in camalkiisa aakhiro laga abaalmariyo qofkii doonahayo in aakhiro laga abaalmariyo waxaa u habboon inuu camalka ula imaado ilaahay dartiis iyo istutus la-aan inuu ula imaado weeyaan kadibna oo camalkii hilmaamo camalkii wanaagsanaa uu sameey inuu samee camal oo kasoo qaado dadka u sheegin dee oo sii faafin si markaas oo uga hortago ama ugu buriyo camalkaas hilmaamid oo hilmaamayo ugu buriyo isla yaabida naftiisa isla yaabi lahaa camalkii la yaabi lahaa oo dhihi lahaa nin qatarata nin fiicanata oo intuu isla qumanaan lahayd
camalka waa inuu iska hilmaamaabo dadkii uu sii sheegino maxaa yeelay waxaa la yidhaahdaa xifdu addaaca ashaddu min ficliha daacada oo la xifdiyo oo la ilaaliyo ayaa waxay ka daran tahay ka dhib badan tahay samaynteeda daacada in la sameeyo ayaa fudud in la sameeyo daacada way fududahay qofku inuu wax fiican camal fiican uu sameeyo waa fududahay laakiin waxaa adag inuu camalka xifdiyo oo qarsado oo qof kale la sii wadaagin sida uu yiri weeyaan Abubakar al-Wasiti wuxuu ku misaaliyay wuxuu yiri maxaa yeelay daacada waxay la mid tahay yiri sida qaaruurada oo kale ama dhalada oo kale dhalada waxaa fudud inay jabto haddana kabid ma aqbalaysa lama kabi karo lama kari karo la isku dhiji karo dhaladii ay jabto bis waxaa la mid ah yiri taas camalka ayaa la mid ah camalka qofku sameeynayo oo wanaagsan haddii oo camalkaas taabto wax yar oo hadii soo dhaxgal oo isu tus ah camalkii uu burahaya haddii isla yaabid camalkii si qofka uu isla yaabaha naftiisa la yaabaha oo isku maleynayo nin fiican cibaadad badan oo saas isku maleynayo sidoo kale camalkii uu burahaya marka waxaan ku dardaarmaynaa insha Allah in ikhlaas cibaadada loo imaado way maxaa yeelay cibaadada waxa kugu leh oo kugu adoonsaday Allah asiga ayaana ka abaal marinayo marka bini aadan soo dhaxglis meesha laba rabo oo daciif ah oo kula mid ah oo wuxuu ku qaban karaa aan la arkin ajirkuma sii kara aakhiro way wuxuu ku sii karana malaha marka bini aadanka inaa ula imaatid cibaadadii maaha waa inaa ilaahay dartiis ula imaatid weeyaan insha Allah sidaas ayaan isku dardaarmeynaa ilaahay ha naga dhigo kuwa cibaado ula imaado ikhlaas ilaahayna cibaadada naga aqbalo billahi tawfiiq wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.